Assalaamu calaykum kusoo dhawaada muuqaalkan maanta waxaan kaga hadli doonaa peptic ulcer. Waa maxay peptic ulcer? Maxaa sababa calaamadaha iyo daaweynta? Intaas ayaa kusoo koobi doonaa haddii aad doonaysid ka bogasho wacan. Waa maxay peptic ulcer? Peptic ulcer waa nabar ka soo baxa xuubka caloosha, xiidmaha yar ama hunguriga, balse inta badan wuxuu ku badan yahay caloosha iyo mindhicirka yar. Sababaha peptic ulcer. Nabarada peptiga waxay ku dhici karaan ugu horreyntii isku dheelitirnaanta dheefshiidka, dareeraha dheefshiidka ee caloosha iyo xiidmaha yar, taas oo keento nabad guur xuubka caloosha ee loo yaqaano mucosal. Labada sababood ee ugu badan waa caabuqa Helicobacter pylori. Bakteeriyadani waxay ku jirtaa caloosha qiyaastii inta kala bar dadka adduunka, inkastoo aysan inta badan dhibaato keenin, waxay keeni kartaa caabuqa waxayna daciifin kartaa xuubka difaaca caloosha, taas oo keento boogo. Midda xigta, daawooyinka NSAIDs. Isticmaalka muddada dheer ee NSAIDs-yada sida aspirin, ibuprofen waxay dhaawici karaan caloosha iyo xuubka xiidmaha yar ama mindhicirka yar, waxayna kordhin karaan khatarta boogaha. Waxyaalaha kale ee sababi kara waxaa ka mid ah cabidda khamriga xad-dhaafka ah, sigaarka, walbahaarka iyo cuntooyinka basbaaska leh. Si kastaba ha ahaatee, arrimahan oo keliya way yar tahay in ay keenaan boogaha iyada oo aanan la helin ama aysan wehelinaynin infekshanka H. pylori ama isticmaalka NSAIDs-ka. Astaamaha peptic ulcer. Calaamadaha ugu caansan ee peptic ulcer-ka waa xanuun gubasho ee dhanka caloosha laga dareemo, sida caadiga inta badan u dhaxayso lafta naaska ilaa xundhurta. Calaamadaha kale waxaa ka mid noqon kara dibiro, laabjeex, lalabo ama matag, saxaro madow oo muujinaysa dhiigbax, iyo matag ama dhiig inuu qofka matago ama walxa u eg kafeega oo kale. Sidoo kale miisaan yari aan la macnayn karin halkay ka timid. Calaamadaha daran sida calool xanuun daran, miir-beelid, dhidid badan ama jahwareer waxay u baahan yihiin daryeel caafimaad oo degdeg ah, sababtoo ah waxay muujin karaan boog dalool ama dhiigbax weyn. Ogaanshaha peptic ulcer. Si loo ogaado peptic ulcer-ka, waxaa muhiim ah in taariikhda bukaanka iyo baaritaanka jireed iyo baaritaanada caadiga la sameeyo. History taking plus physical examination. Hababka ugu muhiimsan si loo ogaado waxaa ka mid ah endoscopy. Habkani waxaa la gelinayaa tubo dabacsan oo kaamiro afka ku wadato caloosha si loo arko si toos ah boogaha, iyo haddii loo baahdo in biopsy loo sameeyo cad yar lagu soo qaado. Habka xiga, perium X-ray. Bukaanku wuxuu cabayaa perium solution, taas oo ka dhigaysa boogaha in lagu arko raajada. Habka ugu dambeeya, tijaabooyinka H. pylori ama test oo lagu sameynayo H. pylori infection. Kuwaasi waxaa ka mid noqon karo neef, dhiig, saxaro iyo shaybaarada unugyada si loo ogaado joogitaanka bakteeriyada H. pylori. Daaweynta peptic ulcer. Daaweyntu waxay ujeedadeedu tahay in la yareeyo calaamadaha, bogsiisana boogaha iyo ka hortagga dhibaatooyinka. Habka daaweynta wuxuu ku xiran yahay sababta boogta. Daawooyinka antibioticska. Si loo cirib tiro H. pylori, isku darka antibioticska ayaa la qoraa caadi ahaan 2 toddobaad. Proton pump inhibitor PPI. Kuwaani waxay yareeyaan soo saarka aashitada caloosha, korna u qaadaan bogsashada nabarka. PPI-da caadi ahaan waxaa ka mid ah omeprazole, esomeprazole. H2 receptor antagonist. Kuwaani waxay sidoo kale yareeyaan soo saarista aashitada, waxaana ku jiro daawooyinka sida ranitidine, famotidine. Antacids. Antacidsku waxay ka takhalusaan aashitada caloosha, siiyaanna gargaar degdeg ah. Isbeddelka habnololeedka. Hagaajinta cuntadaada. Ka fogaanshaha cuntooyinka caloosha ka xanuujinaya sida basbaaska, aashitada iyo cuntooyinka shiidan waxay ka caawin kartaa maareynta calaamadaha. Joojinta sigaarka. Sigaarku wuxuu wax u dhimaa habka bogsashada, wuxuuna kordhiyaa khatarta soo noqoshada boogaha. Beddelka daawooyinka NSAIDs-ka. U beddelashada xanuun baabi'iye kale sida acetaminophen waxay yareyn kartaa halista boogaha shakhsiyaadka u baahan maareynta xanuunka muddada dheer. Qalliin. Xaalado naadir ah oo nabaradu aanay ka jawaabin daawooyinka ama dhibaatooyinku soo baxaan, faragelinta qalliinka ayaa laga yaabaa in ay lagama maarmaan noqoto. Nidaamyada qalliinka waxaa ka mid noqon kara ka saarista qayb ka mid ah caloosha, xiritaanka xididada dhiigga, ama goynta neerfaha caloosha si loo yareeyo wax soo saarka aashitada. Muuqaalkeena halkaas ayuu ku egyahay. Waxaa inoo balana muuqaalada xiga hadduu Alla idmo. Khayr badan.